السلام عليكم أصحابتي قادقة كسو دواada يوتيوب channelkeena waa mar kale iyo muuqaal cusub maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago routinkeyga subaxii ilaa iyo duhurkii wixii aan qabto haduu Ilaahay yiraahdo fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena hadii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa maalinteyda maanta waxay ku bilaabanaysaa nadaafad ugu horeen waxaan soo hagaajinayaa qolka iyo fadhiga intaas kadib waxaan meeshan ku diyaarsanayaa quraac maadaama ay subax waxaan ku soo shubay shaaxi caraftiisii dhageerihii heelkii qolfihii wixii dhan intaas kadib waxaan kale ku soo shubayaa sokortii qiyaastii aan rabay oo shaaxa igu filan digsina waa ku karinayaa waayo waxa iga halawday jalmadii soo inta ka soo iibsanaya mid kale dib mala shaax la'aan lama joogi karo digsiga ku sii karsanaya soo intaas kadib xagaas waxaan ku karinayaa iyadana canjeeradii lagu quraacan lahaa guri walba oo Soomaali waa dabeecad in canjeero subax laga dubo badanka 99% soo anigana guriyahaas ka mid ahay shaaxi way noo soo karay meeshan sidoo kale canjeeradina waa aan dubaa asaga dhan qaabkan ayaan ku soo wada duwaya oo aan ku soo wada dhameynaya shaaxeenina way noo soo karay soo hadda waan soo wada duway xabadii ugu dambeysay waay saana ku soo wada dhameeyay alxamdulillah maalinteena mid qurux badan ayay noo ahayd alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan nicmooyinka uu na siiyay soo qof walba ilaahay waxaan uga baryayaa nolosha uu ku haminayo inuu siiyo adduunyadan waxa uu ka rabo iyo waxa uu rajeynayo inuu ilaahay siiyo hooyooyinka xaamilada inuu ilaahay u fududeeyo kuwa awlaad raaskan awlaad khayr qabto oo barakeysan inuu ilaahay siiyo mar walba waxa waaye anaka waxba qorsheysanayna laakiin waxa ilaahay noola doonay uu noo qorsheeyay ayaa noo wanaagsan soo mar walba ilaahay waxaan ka baryanaa wax khayr qabo oo barakeysan inuu na siiyo shaaxi hadda ku soo shubay darmuuska soo intaas kadibna waxa waaye waqtigii quraacda la gaaray meeshana waxaan ku soo diyaariyay canjeero saliid iyo shaax maanta naga heesaa soo inta badan subaxii canjeero saliid shaax aan jeclahay oo inta badan aan ku quraacdaa waqti badan ayaa ka soo wareegatay hadeerna waxaa la joogaa waqtiga qadada meeshana waxaan ku soo diyaarsanayaa qadadii ugu horeen basasha ayaan soo jarjaranayaa
intaas kadib digsi ayaan dabka soo saartay. Waxaan rabaa meesha inaan bariis fudud oo isku karis aan ka karsado aan ku diyaarsado. Saliid ayaan ku soo shubay basal 2 xabo camal ayay ahayd oo yar yar ah markaan jarjaray waa u jeedeen. soo inta ayaan ku soo wada shubay ayada dhan. kadibna xoogaa ayaan shiilayaa inta ay iska bedelayso kalarkeeda oo xoogaa caraf zaid ay noqonayso. basasha badan iyo toonta badan bariiska aad ay u carfiyaan. soo saas aawadeed ayaan ugu badiyay. intaas kadib waxaan ku soo darayaa xawaajiyaashii aan ugu talagalay. ugu horeyn toontii aan soo tumay ayaan ku soo daray. waxaan kaloo ku soo darayaa xawaajigan waa midka bariiska u isticmaalo marwo ayaan ku soo darayaa. kadibna waxaan ku soo darayaa maraq digaag 1 xabo iyo xoogaa 1 xabo iyo haaf camal ayaan ku darayaa. maadaama bariiska karinay uu yar yahay waxaan rabaa inuu dhanaan fiican uu ii noqdo. soo xawaajiyaashii iyo hilibkii iyo wixii dhan ayaan si fiican isku dhex gelinayaa. kadibna waxaa waaye biyo ayaan ku darayaa waan isku huurinayaa si uu u bislaado. soo hadda bariiska xoogaa yar biyo ayaa ku jiro waxaa waaye wax yar sii huurinayaa. final hadeer diyaar ayuu inoo yahay. sidan ayuu ku soo baxay maasha Allah aad u macaana lagama sheekeyn karo. bariis yar oo fudud oo waqti badan qaadaneen oo simple ayuu ahaa. intaas kadib maadaama bariisku isku karis yahay waxaa loo baahan yahay wixii lagu cuni lahaa. saliidii aan jibsi ku karin lahaa ayaa meeshaan ku soo shubay markii ugu horeysay. waxaan sugaa intay soo kululaanayso xoogaa. intaas kadibna waxaan ku soo shubay jibsigii oo si isla eg oo qurux badan aan soo jarjaray cusbo yarna aan ku soo daray. soo hada jibsigeeni waa aan ku soo wada shubay saan ayuu u karsamayaa. wax yar kadibna diyaar inoo yahay waa aan ka bixin doonaa. ugu dambeyn oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa.